magacaygu waa xasan saleebaan dhuxul laab saalax waxaan jecelahay inaan qof kasta minankiisa meeshiisa iyo madashiisa ku salaamo dadkay daawanaya inta ka sako su'aalo waxa jiray baraha bulshada igu soo weydiiseen kuwaasi oo la xiriiray xanuunka COVID-19 anigu si ogtiin dhakhtar meehi laakiin su'aalihiin waxay u badnaayeen wacyigelinta sida loogu hortagi karo intii galashahan aqliyadaydu faraso waxaan isleeyahay waa ka jawaabi kartaa dadkii tirada badnaa halkooga mid kasta laguma salaami karo mid kastaba laguma xusi karo mid kastaba su'aashiisa lama soo qaadan karo balse waxaan ka soo qaatay dhowr qof oo kala jooga magaalooyinka Jigjiga Muqdisho Beledweyne Baydhabo Hargeysa Burco Kampala Kismaayo Gabiley Salax Dheer iyo Djibouti gaar baan inta u salaamaya xaadsamaan ku horeynayaa in laasxanood joogto su'aasha koowaad ay weydiisay xaadsan waxay leedahay wax la yiraahdo xaadsan Cabdi Ismaaciil qofka cudurku ku dhaco dadka ku ceebsanaya talada uu haysa maxay tahay tiri xaadsan وسؤال مهم الله عذر كي عافمات كهايه روحو عسكري عذر كلنا عدبن كدا عقددي على الحمدو وكان كعيسي عنان ملهه قف كاستاين وقف كله حنو سنيه احترامه كو احترامه دبته ومهم اللي سكون حريستنا وي في عنته صالح علي جامع oo Beledweyne jooga waxaan leeyahay Saalax buundada la ilaalinayo igu salaan wuxuu weydiiyay su'aasha sida loogu hortagi karaa waxa loogu hortagi karaa qaadashada talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirtu nasiiyeen ay ka mid yihiin in nafsaabka la xidho la faraxasho la kala fogaado waxyaabahaasi un baa laga hortagi karaa aan islaalino ilaahay baana wax ilaaliya aan ku sii socdo maxamed maraacin magaciisa labaad waxa uu joogaa Jigjiga waxa uu leeyahay aragti nooceeya ayaad ka haysataa waxaan ka haystaa maxamed oo inuu cudurku yahay dilaa waxaan ka haystaa inuu dadkii kala yirdiyay kala fogeeyay dunidii kala xiray dhaqaalahaan saameyn dadkii u geystay nafad badan khaarajiyay cabsi badan dadka ku beeray warwar ku abuuray inagu si laakiin dad islaam ah oo diin leh oo iimaan leh oo qadarka iyo qoraalka aqbalaya ayaynu nahay marka waxaan aaminsanahay in uu cudurku yahay mushkilad iyo aafo marka laga reebo gabowga iyo geerida wax kastaba daweyleeyihiin kulli wala iska heli doonaa ومر بيتي بيدو باهي واحد دتكو قرصدان مر بيديسك لفتكيسو ها wax dadku ka argagaxaan kulina khaatiirta iyo culimada saynisku dawo keenay doonaan ama u heli doonaan waxaan ka aaminsanahay inuu kamid yahay mid kamid ah mushkiladihii ugu waaweynaa ee sanadihii ugu dambeeyay dunida soo maray laba su'aalood oo is saaran ninka la yiraahdo Adnaan عويل أيها وحلي بهذا السؤال تسلي وعيقلين COVID-19 وقد طيب قادنايا وحكلوا سؤال لماذا وأولو يدنين ويدين سفع المقاسم وله محي هالعبوركو وقد طيب قادن وايا مسكا قيب قاتين إن بدن ويسوغان يهنا ذا كمذي وحن أرنكرا ويكا قيب قاتين وعيقلين COVID-19 إيوه وعيقلين مها كله يعرمها برشدة haddaan imaado anigu haddaan isku imaado kulay waxa laga yaabaa in aan tixyar oo kooban idin mariyo oo kaga hadlayo COVID-19 oo taasiba wacyigelinta aad doonaysaan inay halabuur ka qayb qaataan un ka mid noqon doonta wadamo xoog iyo xadaarad lahaa barkood xilligani ka dhaxulo xanuun xadku ka baxo xadku goosto xanuunku hadeer xuduud ma lahe guryaha isku xidha halka ku jiray haddaad xumadiyo qof u ciisigo cunuhu ku xidhmo dareento xanuun xarunta dhakhtarada xiriir la samee
afkana yar xidho dadkaaga xurmee kuwii xidigaha ka xal warramee xogaha dayaxana korxaadinayee xilkii dunidani xaynkooda gashay awood isku xeeray xeerar la'aan xaqlaha dunida xigmada tusayee wariyaha isku xidha halkaa ku jireen kala fogaada kala durqa oo weliba faraxasha hadaynu su-aalihii kusii soconno su-aasha lixaad ayaan u gelayaa waxay tahay waxa weeye ninka odayga ah ee jooga magaalada Kismaayo wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cumar Gaabow adigiyo dadka reer Kismaayo marka koowada waan salaamaya saaxiibkay Cabdirasaaq Tooshman isagana salaamaya waxa kale oo aan salaamaya dadka daawanaya Cumar Gaabow wuxuu leeyahay hadii ay bulshadu dhagaadeegto maxaa tala ah way wacyigelinta ka dhagaadeegto horta waaba wacyigeline dadka وأبور إلهي سميي أبوري ديقي يدي عنك هي نفتي نلش قلي أي كوري مدانا عاسيان وبرنهم إيان برنا كوري مدان مركا قادة شدو إن ترد اللقاتانا وحي كحرنتون سيدا حق إلهي loogu dhagan nugul yahay iyo sida looga leexanayo siday dadku ugu kala qaybsan yihiin in bay qaadashada iyo inay talooyinka qaadan waayaan oo la mid ah laakiin inta waa la dadaalaya waa la wadaya si way jiraan idaacado badan iyo social media inta wacyigelintu way ka socotaa wacyigelintuna aday wacyigaaga iyo noloshaada wacnaynaysaa oo hagaajinaysaa qofka ku wacyigelinaya isaga tiis waba ku sheegaya oo ku faraya oo ku tilmaamaya marka ogow in adiga wax lagu sheegayo waxa lagu sheegay inaad qaadato isku day ilaahayna kugu anfacdo haddaanu yimaado su'aasha kale ee halkan inoogu qoran Cabdirasaaq Cabdi Isxaaq oo jooga Baydhabo Janaayo wuxuu leeyahay waxaan weydiin lahaa caabuqan COVID-19 ee dunida saameynta ballaaran ku yeeshay Soomaalidu siduu u saameeyay dadka Soomaalida ahina cabsi intee leeg bay ka qabaan su'aashii hore bay hoos imanaysaa way muuqataa way caddahay waynu ognahay inaan Soomaalidu xanuunkan aanay argagax fara badan iyo baqdin iyo taxadir midnaba ka qabin ka qabo man annaguna idin leenahay way ilaaliya ilaahay baa wax ilaaliye Anas Cabdirasaaq waxuu leeyahay in qofka xanuunka qaba dadka laga dhex takooro miyaanay u keenayn uqdad iyo inuu qofku naftiisa wax badan isweydiiyo ma yana in umada laga dhex qabto qofku ku dhaco oo la daweeyo oo la baxnaaniyo si ana naftiisa iyo nafo kale u sarayn in la takoora waa muhiim way xanuunkii baa lagu kala qaadaya taabashada iyo isku soo dhawaanshaha iyo salaamida marka horeba waa tan idin leeyahay sheedin iska salaamo shafka ay saarina muhibbo ali oo xerada qaxootiga ee dhadhab alla maxaan BBC-da ka maqlay xerada qaxootiga ee dhadhab dadka jooga waa salaamaya su'aashi weydiinaysa waa su'aashii hore bay la xiriidaayo sidii uqdada looga saari karaa dadka bayna leedahay waxaan leeyahay uqdadu kulleyba maaha mid rabaani oo qofka ku abuuran marka laga hadlayo cudurkan ee waa mid xanuunkan iyo xaaladan ay dadku ku takooreen uqdadu ku beeray tay qofna qadarka alle horta ma beeniyo marka very simple taas way fududahay haddaan si guud u soo noqdo oo maxay haday u imaado su'aalihii
su-aasha ah magacaygu waa xasan maxamed cali buu yidhi ku nool dalka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala waxaan filayaa in Kasiinyo uu ninka odayga joogo dadka reer Kampala aad baan u salaamayaa Soomaalida xiriir lockdown-kii annaga u saameeyay waxaan ku jirnaa in kastoo hadda la qafiifiyay su-aashayduna waxay tahay buu leeyahay wadada caalamka intooda kala dadaal ayay ugu jiraan sidii ay u xakameyn lahaayeen uga foojignaan lahaayeen xanuunkan balse Soomaalidu weli kuma baraarugsana hayo Soomaalidu waba Soomaali oo inta badan waxa la sheegaa inay bulshooyinka iska dhagaadag ee dhayalsiga aanka ku ah yihiin marka laga hadlayo talooyinka caafimaad dhakhtarradu waxay sheegaan in Soomaalidu had iyo jeer aanay aad uga taxadirin inay qaataan talooyinka caafimaad isla mar ahaantaana raacaan tusaalooyinka iyo tilmaamaha guud ee dhakhaatiirtu u soo jeedinayaan inagu laakiin xaalad caafimaad iyo dhinaca dhakhtarka kama inaan eegin oo tala caafimaad ma bixin karno laakiin waxaynu bixinaynaa taa ku saabsan wacyigelin walaalaya waxa laga yaabaa anigu inaan maanta 40 jirahay ama aan ku dhowahay waxoogaa bay iga dhiman yihiin waxaan ka mid ahay dadka dunida guudkeeda jooga xanuunka COVID-19 saameeyay oo miyuu ugu dhacay waa mayo allaba ima keeno laakiin sidii ii saameeyay dee anigii xaaskaygii iyo ciyaalkaygiiba una kala fogay iyaguna Ingiriiska ayuu lockdown-kii ugu dhacay oo ay ku xanibayeen aniguna Hargeysa joogaa marka adigana sidaasi ka duwan iyo si lamadu ku saameeyo mid kamid ah qoyskaagu buu ku dhacay qofad garanayso buu ku dhacay in badan oo inaga mid ah u dhintay han isku naxariisano isku tudhno iswaanino dhamaanteena inagoo qaadanana talooyinka caafimaad aynu ku baraarugsanaano inaynu yeelo wax kasto oo aan nafteena ku badbaadinayno mana badbaadi karno haddaan Ilaahay ina badbaadin su'aalihii intaasan ku soo koobaya